okay. This is what y'all doing to women. gabadhan Soomaaliyeed ee ooyeysa nin ayaa si xun u dilay isagoo ku feeray jaajuurka guryaha lagu dhiso markii ay u diiday inay nambarkeeda siiso amba u qorto isaguna si xun buu u dilay walibana iyadoo rag badan ku dhex jirta ayuu ku dhex dilay dhammaantoodna way wada daawanayeen markii la dilay hal nin oo xitaa ka qabtayna mu jirin sidoo kale gabadhani waxay dhacday lacag dhan $40,000 iyadoo dad badanna been u sheegtay oo khiyaamaysay balse qisada gabadhan ku dhacday markaan arkay ugu horeyn ninkani qaabku u dilay iyo ooyinteeda waa la murugooday laakiin markii aan sheekadan soo baaray oo nisiri ka gungaad waxaan arkay arrimo cajiib ah oo iga yaabiyay gabadhan Soomaaliyeed waxay samaysay qaladaad badan amba ficilo aad u xunxun oo markaad maqashid amba aad ogaatid aad la yaabaysid runtii in sidaas loo dilana qaladka iyada iskale haddaba si aad u ogaatid qisada sheekadan ka dambaysa iyadoo dhammaystiran ugu horeyn like saar videogan waxaan ka sii jecelahay in love saartid sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta halkan aanu ku midownay follow soo dheh page-kan waanigoo ah Nadira Saciid gabadhan waxaa dilay nin madow ah waana gabadh Soomaaliyeed oo ku kortay qurbaha waxayna ka mid tahay dumarka markasta isqaawiya timahoodana baneeya ilaahay ha soo xadeeyo qof kastoo xagga commentiga aamin ugu soo qor haddaba habeen iyadoo joogta meel bulsho badan isugu timi ayaa nin ka mid ah raggii goobta joogay wuxuu ka codsaday in nambarkeeda ay siiso amba u qorto balse way ka diiday muran dheer ayaa dhex maray labadoodaba ninkiina intaa kadib jaajuur ayuu dhulka ka qaatay kuwa guryaha lagu dhiso wuxuuna kaga dhuftay wejiga runtii ficilka uu ninkaasi sameeyay wax wanaagsan maaha waa laga qurux badan yahay si kastoo gabadhu u xun tahay xaquma laha mana istaahisho in ninuu gacan u qaado amba uu dilo gabadhan Soomaaliyeed hal erey ay ku celcelinaysay markuu ninkani dilay waxayna lahayd dhammaan raggan oo dhani way idaawanayeen markuu ninkani idilayay mid iga qabtay oo si raganimo leh iiga celiyay ninkaas muu jirin dhammaantoodna way idaawanayeen hadalkaas ayay ku celcelinaysay iyadoo ooyeysa markii la dilay kadib fiidiyoogana iska duubtay wuxuu ku faafay dhammaan social mediaha dadkii arkay oo dhanna way la murugoodeen dilka loo geystay gabadhan isla markiina waxaa loo sameeyay page loogu ururinayo lacagta buracaada lacagtaasina ku dhawaad waxay gaadhay $40,000 balse dib waxaa laga ogaaday in gabadhani ay been u sheegtay bulshada oo dhan sidoo kalena qaladka ay iyadu lahayd lacagtiina sidaasay ku qaadatay haddaba markii aan soo ogaaday sababta loogu sheegay inay tahay tuugad amba iskaamaris wax la yiraahdo gabadhani waxay wadooyinka ku hor dhirbaaxi jirtay ragga cadaanka ah dadka dhexdooda ayay ku dhirbaaxi jirtay iyadoo ku jeesjeesaysa kuna qoslaysa markay dhirbaaxdo u fiirso fiidiyogan waxay dhirbaaxaysaa ragga cadaana iyadoo ku jeesjeesaysa sababtii uu ninku u dilayna ilaa hadda lama garanayo ma nambarkeeda ayay u diiday mise isagana way dhirbaaxday daawade sidee ay sheekadani kuula muuqataa gabadhan miyaa laga qaldan yahay mise iyada ayaa ka mas'uula wixii ku dhacay fikirkaaga nagula wadaag dhagka commentiga like na saar muuqaalkan waanigoo ah Nadira Saciid waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka videogan waa inooyo mar kale iyo muuqaalka kan xiga